ugu horreeyey nebiyada wuxuu ahaa nebi aadam calayhi salaam oo ah aabbaha bini aadamka. waxaa ku xigay nebi idriis calayhi salaam oo ah qofkii ugu horreeyey oo qalin wax ku qora. waxaa ku xigay nebi nuux calayhi salaam oo ah rasuulkii ugu horreeyey oo allah subxaanahu watacaala soo dira. waxaa ku xigay nebi huud calayhi salaam oo loo diray reer caad oo ahaayeen qoomkii xoogga badnaa ee buuraha guryaha ka samaysan jiray ee deganaa deegaanka lagu magacaabi jiray axqaaf. waxaa ku xigay nebi saalex calayhi salaam oo loo diray reer tamuud ayagoona ku caasiyey dilayna hashii mucjisadaheed oo ilaahay u soo diray. waxaa ku xigay nebi ibraahim calayhi salaam oo lagu magacaabo aabbaha nebiyada. qoomkiisana way beeniyeen ayagoona ku riday dabkaas oo allah subxaanahu watacaala uu kasoo badbaadiyey. waxaa ku xigay nebi luud calayhi salaam oo ahaa wiil uu adeer u ahaa nebi ibraahim calayhi salaam. waxaana loo diray qoomkii samayn jiray faaxishada ah inay dadka isku jinsiga ay isu galmoodaan. waxaa ku xigay nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq calayhim salaam oo ahaayeen ilmihii nebi ibraahim calayhi salaam. waxaa ku xigay nebi yacquub oo lagu naanayso aabbaha reer bani israa'iil. nebi yacquubna waxaa ku xigay wiilkiisa nebi yuusuf calayhi salaam oo ah qofkii ugu quruxda badnaa bini aadamka. waxaa ku xigay nebi ayuub calayhi salaam. waxaa ku xigay nebi shucayb calayhi salaam oo loo diray reer madyan. waxaa ku xigay nebi muuse calayhi salaam oo lagu naanayso kalaamullah sababtoo loogu naanaysana ay tahay inuu ilaahay la hadli jiray. waxaa ku xigay walaalkiis nebi haaruun. nebi haaruunna waxaa ku xigay nebi dulkifl. nebi dulkifl waxaa ku xigay nebi daa'uud calayhi salaam. nebi daa'uudna waxaa ku xigay wiilkiisa nebi suleymaan calayhi salaam oo loo saqiray inuu adeegsada jinka, dabaylaha iyo shimbiraha. waxaa ku xigay nebi ilyaas calayhi salaam oo loo diray qoladii caabudi jireen sanamkii lagu magacaabi jiray bacal. nebi ilyaas waxaa ku xigay nebi alyasa. waxaana kusii xigay nebi yuunus calayhi salaam oo lagu naanayso saaxibulxuut ama ahaa nebigii uu laqay kalluunka. waxaa ku xigay nebi sikriya calayhi salaam oo ay dileen qoomkiisii. waxaana kusii xigay nebi yaxya calayhi salaam oo asagana ay dileen qoomkiisii reer bani israa'iil. waxaa ku xigay nebi ciise calayhi salaam oo lagu naanayso ruuxullah ama ruuxda ilaahay. nebi ciisena waxaa ku xigay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. ugu dambayn nebiyada aan soo sheegnay waa 25 nebi ee qur-aanka lagu sheegay. nebiyadana 25 keliya ma ahayn oo waa ay ka badnaayeen. nebigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu xadiis saxiixa noogu sheegay in nebiyada ay ahaayeen 124,000 oo nebi iyo 315 rasul. intoodana dhowr iyo 20 ka mid ah ayaa qur-aankana loogu sheegay.